Assalamu alaikum. This is Dr. Iyad, ENT specialist in Delmar Hospital. Bismillah, Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Dhakhtar Iyaad Shaquur, dhakhtarka cunaha, dhagaha iyo sanka ENT. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo muhiimadda ay leedahay in la ogaado dhibaatooyinka maqalka sida ugu dhaqsaha badan. Lumista maqalku hearing loss waxay leedahay laba nooc oo waaweyn. Nooca koowaad waa lumista maqalka gudbinta conductive hearing loss, taasoo la xiriirta dhegta dibadda iyo dhegta qaybta dhexe. Noocan waxaa lagu ogaan karaa baaritaan la yiraahdo tympanometry oo cabbira sida ay u shaqeyso dhegta qaybta dhexe. Nooca labaad waa lumista maqalka dareemayaasha sensory neural hearing loss, taasoo la xiriirta neerfaha maqalka ama maskaxda hoose brainstem. Noocan waxaa lagu baaraa baaritaan la yiraahdo ABR, qalabka cabbirka dareen-wadayaasha maqalka oo qiimeeya sida neerfaha maqalku uu fariinta ugu gudbiyo maskaxda. Alxamdulillaah, isbitaalka Dalmar waxaan ku haynaa labada baaritaanba si loo ogaado nooca dhibaatada maqalka isla markaana loo bixiyo daryeel sax ah oo degdeg ah. Higsigeenu waa caafimaadkaaga. وأخيرا أهلا وسهلا فيكم في قسم الإذنية في مشفى دلمر. Dalmar Specialist and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.